بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka waa si toos uga daawanaysaan TV-ga Universal warkana waxa uu idinkaga imaanayaa caawa studio-ha Universal ee magaalada Muqdisho qodobada wararkan idin haynana waxa kamid ah Allah una xariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday magaalada London ee wadanka Britain madaxda ugu sareysa ee dalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay geerida Allah una xariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyadoo sidoo kale madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiin kaleba ay iyana ka tacsiyeen geeridaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa cafis u fidiyay ku dhawaad 600 oo maxbuus kuwaasi oo ah maxaabiista ku jira xabsiyada ku yaala Soomaaliland dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in wadamada ku bahoobay kooxda la yiraahdo Paris Club ay Soomaaliya ka cafiyeen lacag gaaraysa 1 bilyan iyo 400 milyan oo dollar akhbaaraadka caalamkana waxa ugu muhiimsan tirada dadka u geeriyoonaya cudurka coronavirus ayaa sii kordhaysa iyadoo meelaha ugu badan ay yihiin wadamada qaaradda Yurub iyo Mareykanka intaas waxay qaar kamid ah qodobadii wararkeena u diyaar garooba wararkaasi warar kale waan goordhow idin soo gudbiyo aniga Cabdullaahi Axmed Nuur kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal Allah una xariistay waxa maanta wadanka Britain ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo la xanuunsanayay cudurka coronavirus-ka toddobaadadii u dambeeyay ayaa ku geeriyooday saaka aroortii magaalada London ee caasimadda wadanka Britain waxa uu ka mid noqday dad 563 qof ah oo maanta oo kaliya wadanka Ingiriiska uu geeriyooday xanuunkaasi coronavirus Nuur Cadde ayaa lagu xusuustaa doorkii uu ka soo qaatay siyaasadda dalka Soomaaliya isaga oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda dalka xilal kala duwan soo qabtay waxa uu noqday wadanka ka noqday ra'iisul wasaare sanadkii 2007 dawladdii uu hogaaminayay Allah una xariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa dad badan ay ku xusuustaan doorkii uu ka qaatay xaaladda magaalada Muqdisho oo xilligaasi ahayd mid cakiran ciidamada Ethiopia ay gudaha magaalada ku sugnaayeen waxana uu qayb ka qaatay dadaal xoog leh oo lagu xasilinayay caasimadda isaga oo wax weyn ka bedelay dhibaatooyinkii magaalada ee u dhaxeeyay ciidamadii Ethiopia ee dawladdii ku meel gaarka ahayd markaa ilaalinayay iyo xoogagii magaalada Muqdisho ku sugnaa Allah una xariistay Nuur Cadde waxa uu ka soo shaqeeyay sidoo kale booliiska Soomaaliya isagoo bartay isla markaana ku takhasusay baarista canshuuraha iyo sharciyada caalamiga ah waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay booliiska Soomaaliya iyadoo oo sanado dhowrana uu la shaqeynayay dawladihii rayidka ahaa iyo kuwii militariga ahaa ee dalka soo maamulay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana tacsidaasi diray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qof walba waqti leeyahay halkan waxaan uga tacsiyanayaa Allah u naxariisto ra'iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday maanta isbitaal ku yaala dalka Ingiriiska ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisii naxariis siiyo eheladiisii qaraabadiisii ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan inuu samri iimaan u ka siiyo ra'iisul wasaare Nuur Cadde wuxuu ahaa haliyay soo qabtay xilal kala duwan waxaan lagu xasuustaa inuu ahaa ra'iisul wasaare taariikhda ku galay tanaasul madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ahaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ayaa iyana ka tacsiyay geerida Allah una xariistay ra'iisul wasaarihii hore iyadoo sidoo kale madaxweynayaashii hore ee Soomaaliyana sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh ay ka tacsiyeen geerida Allah una xariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde hadda waxaa telefoonka toos ugu jira madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani mudane madaxweyne waa ku soo dhaweynayaa marka hore haddii aad maqli karto inta kadib maxaad ku xusataa Allah una xariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo maanta ku geeriyooday magaalada London ee wadanka Britain dooma santahay Universal TV fursadan qaaliga oo diisiisan inaan maanta halka ummadda Soomaaliyeed
meel kasta ay joogto aan uga tacsiyeeyo geeridii naxdinta lahayd ay ku timid marxuum ra-iisul wasaarihii hore nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday dalka ingiriiska. runtii wuxuu ahaa saaxiib muddo badan haddaan isnaqaanay. wuxuu ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee xurmada iyo xushmada ku leh dadka soomaaliyeed, muddo dheerna usoo shaqaynayay dalka soomaaliya, heerar kala duwan ciidamada booliiska soo maray, muddo dheer ka shaqaynayay hay-addii lanqeyrta cashe soomaaliya madaxna kasoo noqday, sidoo kale ra-iisul wasaare xilli adag oo runtii dalka soomaaliyeed marxalad adag mare ay soo maray buu ahaa. waxaan aad iyo aad runtii marka ugu horeysa uga tacsiinaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gaar ahaan qoyska reer nuur xasan xuseen, gaar ahaan maxamed oo saaxiibkii ah oo aan filayo inuu reerka maaragtay curad u yahay. waxaan aad iyo aad runtii lagu xasuustaa nuur cadde nin wuxuu ahaa aad u degan, nin wuxuu ahaa naxariis badan, nin wuxuu ahaa dadka dhegaysta oo runtii jecel soomaali inay horumar iyo wanaag gaarto, talooyinka qaata, jecel inay soomaaliya hagaagto, waktigiisana inta badan u huri jiray in uu ka qayb qaato sidii soomaaliya xasilooni ay u gaari lahayd. waktigiisii baa yimid. ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa jannadii firdows inuu geeyo, annagana sabri iimaan naga siiyo, eheladii iyo qawaraabadii dhoodhaweydna uu samir iyo iimaan ka siiyo, annagana noo dembi dhaafo. runtii xanuunkan aad u halakeeyey adduunka oo soomaaliduna ay adduunkaas ka mid tahay, khaasatan wadamada yurub iyo maraykan ay ku noolaayeenna saameynta hadda badan ku leh. annagana ay suuragal tahay in saameyntaas ina soo gaarto. waxaan ummadda soomaaliyad uga faa'iidaysanayaa inaan la sahlan xanuunkan oo runtii taxadar badan laga muujiyo, oo tacliimaadka iyo talooyinka wasaaradaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta ay bixinayaan la qaato. waxaan ilaahay subxaana watacaala ugu rajaynaynaa inuu jannadii firdowsa geeyo, annagoo dhanna uu noo dembi dhaafo, gadaashiisana una fidnayn, ehelka iyo qaraabadiina ay samri iyo iimaan allah ka siiyo, ummadda soomaaliyeedna ay maaragtay sabri iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo. isagana wuxuu noqon doonaa qof taariikhda soomaaliya ku xasuusmaan doonto muddo. mudane madaxweyne, maxaad is leedahay soomaalidu way ka baran kartaa hogaamintiisii iyo tilmaamaha wanaagsanaa ee aad soo sheegtay inuu ku sifoobay, allah u naxariistay, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde? wallahi tilmaamaha ugu muhiimsan oo aniga aan soomaalida la isleeyahay waa laga baran karaa, anna wax badan aan uga bartay waxaa ka mid ah ganaanta iyo dulqaadka iyo in la isdhegaysto iyo in mar walba xalka dadku meesha u badan yahay oo wanaag ku jiro la qaato. wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa dulqaad badan leh, u sabra xaaladaha jira, runtiina mar walba ku dadaala wixii markaas dadku u badan yahay, mararka qaarkood haba kharaaraatay. waan dareemi karaa marxalad adag buu kusoo beegmay, khilaafaad adag ay jiraan, aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ay jiraan, xoogag siyaasadeed oo soomaaliya kusoo kala horjeeday ay jireen, laakiin waxaa uun la oran karaa ugu dambeyn wuxuu ku guulaystay in nabad lagu soo dabaalo. shirkii jabuuti ugu dambeyn labadii dowladdii uu hogaaminayay iyo garabkii kaleeto heshiis uu ka dhaco, dowladna halkaas la wada ogol yahay ay dhalato, kadibna uu tartan intuu galay markii laga guulaystana si nadiifa oo sharaf leh uu maaragtay uu aqbalay natiijadii, kadibna uu la shaqeeyey maamuladii kala dambeeyey ee jiray iyo qof kastoo siyaasi iyo soomaaliya mar walbana jeclaa inuu tala siiyo. waxaa iigu dambeysay markii 2018 safarkii ugu dambeeyey aan London tegay, anigoo markaas olole ugu jira xilka aan hadda mas-uulka ka ahay. runtii waxaan ku kulanay London, wuxuu igala qayb galay shirarkii halkaa ka qabanayay, talooyin aada u fara badan waan isiiyey. marka saaxiibka oo aan mar walba iyo meel kastoo aan markaas ku kulanno aan talooyinka dalka kala qaadano, walwal badanna uu ka haa soomaaliya siday xaaladeeda isu bedeli lahayd, jecelna madaxda iyo dadka markaa u muuqda inay dalka ay saameyn ku leeyihiin, jeclaa inuu mar walba tala joogtaa u siiyo. marka runtii wax badan oo u baahan in laga barto marxaladan adagaan ku jirna ayaa jirta, in laysu dulqaato, in la isdhegaysto, in marxaladaha adag looga wada gudbo isfaham iyo isu tanaasul. runtii wuxuu ahaa nin tanaasul badan, haddana sidoo kaleeto maaragtay wada hadalka iyo negotiationka si wanaagsan u jecel in uu uga miro dhaliyo. marka taariikhdu waa xasuusnaan doontaa, waana taariikhda siyaasadeed soomaaliya si fiican bay u ogaan doontaa. aad buu umahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni
oo telefoonka garowe toos iigu warramayey kana tacsiinayay geerida Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. markana Hargeysa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cafis u fidiyay ku dhawaad 600 oo maxbuus kuwaasi oo ku jira xabsida Somaliland. wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cafis loogu fidiyay maxaabiis gaaraysa 574 maxbuus kuwaasi oo ah maxaabiista dembiyada fudud loo haysto. madaxweynaha oo cuskanaya qodobo dastuuri ah ayaa sheegay in dhammaan maxaabiistaasina ay tahay in xabsiga laga sii daayo isagoo amray ciidamada asluubtana in ay fuliyaan wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in wadamada ku bahoobay kooxda la yiraahdo Paris Club ay Soomaaliya u cafiyeen ama ka cafiyeen lacag gaaraysa 1 bilyan iyo 400 milyan oo dollar taasi oo qayb ka ahayd deynta lagu leeyahay Soomaaliya. Umar Soomane ayaa warkan inoo haya. Paris Club oo ay ku bahoobeen wadamada ugu waaweyn Yurub iyo Ameerika oo Soomaaliya ku lahaa lacag gaaraysa 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa habeenkii xalayto shir qaatay muddo dhowr saacadood oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta wadamada ugu sareysa Yurub iyo Ameerika waxa ay Soomaaliya ka dhaafeen lacag gaaraysa 1.4 bilyan oo dollar iyadoo shirka xagga online-ka ah dawladda Soomaaliya uu ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. dhaafidda deyntaasi ayaa ku timid kadib markii Soomaaliya ay buuxisay in ka badan 90 sharuudood isla markaana laga dhaafay deemihii ay ku lahaayeen hay'adda lacagta dunida IMF, bangiga dunida ee World Bank iyo bangiga horumarinta Afrika ee African Development Bank. lacagaha ka haray 3 bilyan ee dollar ayaa Soomaaliya laga dhaafi doonaa 3 sano ee soo socota haddii ay buuxiso sharuudaha kale ee laga doonayo. qadarta lacageed ee laga dhaafay Soomaaliya waxaa maanta dadweynaha Soomaaliyeed kala hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle isagoo shacabka Soomaaliyeed la socodsiiyay halka uu marayo hayaanka deyn cafinta Soomaaliya. xalay waxa la inaga dhaafay bilyan iyo 400 oo milyan baa la inaga dhaafay xalay. ya 1 bilyan 400 million dollars yaa la inaga dhaafay. shalay la inagu lahaa maanta la inagu lahay halkan ay ku qoran tahay. kobtaasi ku qoratay press release-kiina waa kaas oo isaguna meel walba waa yaala bilyan iyo 400 oo milyan ayaa la naga inta soo hadhay wadan baa loogu tagayaa waana wada jiraysan oo la socdo oo la marayo inta soo wada soo mareen waxa inaga gaali dooma inagu wadanada ugu wanaagsan ayaan ku jiraa maxaa se very important faantaa deynihii oo dhan halkan la iska dhigay marba mid baa la soo qaadanaya waa la isla arkaya waa la dhaafaya marba mid baa la dhaafay inna waa la dhaafay فقرت لكن waxa ay muhiimadu tahay waxa weey maanta deeqdii adduunku way loo furan yihiin barnaamijkeena aan wadana National Development Plan ka waxa ku yaala ayaa la fangareynaya la finance gareynaya aynu taa isla fahamno horana aanu socono marka halka waxa ku yaala waxa weeye waa press release weeye halkan kale waxa ku yaala waa minutes weeye wixii ka soo baxay inta xalay la isla gar bilyan 400 milyan dhowr jeer baan ku celinayaa la inaga dhaaf inta kale goon waxa kale aan doonayaa ku daro nasiib wanaag waxa ay xalay in 3 wadan oo aad iyo aad inaga muhiim inoogu ah ay ka soo qayb galeen wadanada Carabta Sacuudiga Imaaraadka iyo Kuwait inay ka soo qayb galaan shirka nasiib wanaag bay hayd bay ka soo qayb galeen Paris Club kuma jiraan ya oo de iyagu Carabta markaad isku geyso 9 milyan iyo 50 bay nagu leeyeen 950 milyan ya ayay nagu leeyeen markaad laba isku geyso iyaga Carabaha markaad isku geyso iyo institutions ay leeyihiin Arab Fund for Economic Social Development Arab Monetary Fund iyo Islamic Development Bank markaad isku geyso gibigood bilyan in yar la bay nagu leeyeen bilyan in yar la wali waxa laga dhaafay iyagu way noo hadheen IFIs ka soo dhameynay Paris kala maxalli dhameynay nidaamka Carabtaan u gelinay dadka la halmaala Umar محمد صومانة يونيفرسال تي في مقدشو wararka la xiriira taxsiida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa soo taraya madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ee Shariif Sheekh Axmed ayaa isna ka tacsiyay geerida Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنا لله وإنا إليه راجعون إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله نحرسته walaalkay nuur xasan xuseen ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda TFG-ga oo ku geeriyooday saakay dalka Ingiriiska ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiinaynaa naxariistiisa inuu geliyo jannadii firdawsana uu geeyo qabrigiisa ilaahay uu waasiciyo annagana gadaashiisa ilaahay na fidnaynin ahalkiisa iyo qaraabadiisana ilaahay oo mataqaanaa barakeeyo waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo marka ugu horreysay ahalkiisii iyo qaraabadiisii saaxiibadiisii iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan anoo ku hadlayo magacayga magaca qoyskayga iyo magaca madasha xisbiyada qaran waa meel la wada socdo waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariista jannaha siiyo runtii ra'iisul wasaaraha aniga waxaan ka soo wada shaqeynay arintii dib u heshiisiinta 2008-2009 oo ka dhacday dalka Djibouti runtii waxa ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan nabadda aad u jecel runtii maskaxdiisuna aad ay u ballaaran tahay go'aankii wanaagsanaya oo ka qaatay arrimaha dib u heshiisiintana ay keeneen in lagu guuleysto inay noqoto dib u heshiisiintaas mid mara dhasha maantana runtii qayb weyn ka ah dowladnimada maanta la haysto marka ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro dabcan xilaalka uu soo qabtay waa kala duwanayeen waxaan u maleynayaa waxa ka soo bilaabay wardiya Faransa kadibna booliska kadibna maxaan ku yiraahdaa bishcas Soomaaliya marka xilaalkaas kala duwan oo soo qabtay runtii amaan waxaan ahayn anigu kulay kuma maqlin intii dowladda TFG aan joogana wada shaqeynay madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayuu kaasi ahaa sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Gabayre ayaa ka tacsiyay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan uga tacsiyaynaynaa anoo ku hadlaya magaca rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxaan halkan uga tacsiyaynaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ra'iisul wasaarihii hore nuur xasan xuseen anoo uga tacsiyeynaya geeridaasi eheladiisa qoyskiisa qaraabadiisa iyo qarankii oo ka tagayba dhammaan waxaan leeyahay samir iyo iimaan runtii anaga markaan ganacsatada Soomaaliyeed aan nahay xilligii oo ra'iisul wasaaruhu uu shaqeynayay abaal weyn iyo taariikh iyo xusuus ayuu ku leeyahay ganacsatada oon haraynin marka anoo magacii rugta ganacsiga Soomaaliyeed ku hadlaya oo ganacsatada Soomaaliyeed ku matalaya waxaan tacsi tiiraan la u direynaa ehelkiisa qaraabadiisa xaaskiisa iyo caruurtiisaba iyo qarankii Soomaaliyeed oo ka tagay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto mudane nuur xasan xuseen oo ah ra'iisul wasaare qaali ah waxaan leenahay ilaahay jannatul firdawsa Allah ka waraabiyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo sakaraadka waa dhaafay su'aasha Allah u fududeeyo waxaan rajaynaynaa dadka khayrka lagu maleeyo saasi khayr ahlu khayr ay noqdaan asoo wuxuu ahaa nin ahlu khayr oo ahaa ahlu diin oo ahaa waxaan rajaynayaa in ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo ahlu jannana ilaahay ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya ayuu kaasi ahaa dhinaca kale Axmed Jaamac oo kamid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya isla markaana ay muddo dheer isla soo shaqeeyeen Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa ka sheekeeyay dabeecadihiisii iyo waxqabadkiisii muddadii ay isla shaqeynayeen Cabdirashiid Rashka ayaa warkan inooga diyaariyay tan iyo markii la soo sheegay geerida Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed iyo waliba madaxda dalka meel waliba ay joogaan waxay tacsiin u dirayeen ehelka iyo qaraabada oo ka geeriyooday marxuumka bulshadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Axmed Jaamac oo waqti dheer shaqo wadaag ee wada ahaayeen Nuur Cadde ayaa mar aan kula kulmay hoygiisa waxa weydiiyay taariikh nololeedka marxuumka magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Jaamac Muuse maxay ahayd waxaan ka howlgabay ciidanka booliiska oo aan madax mar u noqday Nuur Xasan Xuseen Maxamuud Nuur Cadde waxaanu isbarannay 1967 markaan cadan ka imi oo aan ku biiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed iskuna markaa wuxuu ahaa sarkaal hoose laakiin sarkaalkaas wuxuu indhahayda u soo jiiday markaan halka imi sarkaal hawlkar ah
karti badan aqoon fiican firfircoon maxay ahaytoy oo qof kasta oo mas-uuli uu jeclaa inuu la shaqeeyo ama uu u shaqeeyo nuur xasan xuseen waxaanu wada shaqaynay waqtigaas waqtigaa ilaa muddo gaaraysa 10 sannadood baanu xafiis wada fadhinay anaa madax ahaa maxay ahaytoy laakiin wuxuu ahaa nin karti badan nin aqoon fiican nin cadaaladda ku fiican nin maxay ahayd dadwad leh hogaamintiisuna ay ahayd heer sare waqtiga waa yaraa qof calaamadahaasoo lagu tilmaamo dhanka kalena axmed jaamac oo iga warramay waxyaabo badan ayaa waxaa weydiiyey waxyaabaha lagu xusuusan karo nuur cadde asagoona sheegay in nuur cadde oo ahaa shakhsi bulshada ay wada jeclaayeen isku haynta bulshadana qayb weyn ka qaatay wuxuu ahaa nin hawlkar ah maxay shaqo badan aan madaale ah runta aan ka leexleexan laakiin qunyar socoda oo aan buuq iyo dhibaatooyin lahayn ee dadwad leh kan ka soo horjeeda wuxuu jeclaa inuu kasbo kan la jirana inuu sidaa u wato kolka markii dambena wuxuu noqday waatii durka burburay wuxuu noqday maxay ra'iisul wasaare noqday wasiirka koowaad buu noqday waqtigii cabdullaahi yuusuf madaxweyne noqday yacni waxaa lagu xusuustaa maxay ahaytoy waqtigaas inuu anigu ma joogin dalka laakiin warka saan ku helay waxaa weeye inuu is-hortaagay arrintii bakaaraha la doonayay in xabashidu madaafiic ku baabiiso iyadoo ku andacoonaysa halkaasaa dhibaatadu ka socota waa is-hortaagay wuxuu yidhi ma dhacayso dadkaa la baabiinaya dadkaa la duminaya dadkaa la laynaya waxaanoo prime minister ah taasoo ma dhacayso taasna halkaasuu ka baajiyey marka taa wuxuu u leeyahay qadarin iyo maamuus uu mutaystay dadnimadiisa iyo hogaamintiisa iyo dareenku u qabay dadkiisa dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maalmaha soo socda baroordiiq loo sameeyo doono Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxaana la filayaa sidoo kale inay dhacaan kulamo lagu duceynayo marxuumka Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashki Universal TV Muqdisho aad buu mahadsan yahay wariyaheena Cabdirashiid Rashka goordhow waxaan aadaynaa magaalada Baydhabo oo doorashadii guddoonka baarlamaanka maanta ay ka dhacday hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa kulan loogu tacsiinayay Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa kulankan isugu yimaaday siyaasiyiin iyo waxgarad Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya guddi isugu jira wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir duubabka dhaqanka iyo qaybaha bulshada ayaa sheegay in buugga tacsiyada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo maanta ku geeriyooday Allah u naxariistay magaalada London ee waddanka Ingiriiska buugga tacsiyada uu ka furan yahay guriga wiilka uu dhalay marxuumka uu ku yaala magaalada Muqdisho Cismaan Maxamed Cabdi Daalo wasiiru dawlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankaasi loogu tacsiyadeynayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde kulankan waxaa isugu yimid wasiiro xildhibaano gobernatooraha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka iyo duubabka magaalada Muqdisho waxaa looga hadlayay tacsidii ra'iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde maanta ku geeriyooday magaalada London dowladda federaalka ah oo hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dhammaantood tacsi u diray qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday dhammaan ummadda Soomaaliyeed kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii uu ku dhawaaqay muddo 3 maalmood oo baroordiiq ah ayaa waxaa la go'aamiyey in muddadaas 3 maalmood baroordiiq oo madaxweynaha ku dhawaaqay iyadoo la fulinayo in halkan waxaa laga soo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya baroordiiqdaas iyo qaabkii loogu tacsiyeyn lahaa qoyskii uu ka tegey ra'iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde qodobka labaad waxay tahay in buuggii tacsida uu ka furan yahay hoygii magaalada Muqdisho uu ka deganaa ra'iisul wasaarihii hore uuna joogo wiilkiisa Maxamed Nuur Xasan Xuseen halkaasna uu ku sugan yahay qof kasta oo mas'uul ah
oo danaynaya ama diyaaro inuu u soo tacsiyeeyo qoyskaas buugga tacsiyadana gurigaas ayaa laga furay. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro, mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo duubabka dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa dhankooda Soomaalida ugu tacsiyeeyay geeridii ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. waxaan leenahay walaalkeen waa u tacsiyeynaynaa aalka iyo raximka ku geeriyooday dhammaanteedna waa isaga tacsiyeynaa. Nuur Cadde waxa uu ahliyahay Soomaaliyeed taariikh lama ilaabaanana kule xilliga uu xilka hayay waqtiyadii soo marane dadkiisa iyo dadka dalkan u dhashay intaba xilligii waqtigii Itoobiyaanka fursado badan oo aan la malay karin uga faa'iideeyay. marxaladaas ayadaana waxay ahayd mid aan dadku inta badan aysan wada garan karin. marka waxaan leenahay walaalkeen cafiya masaabax ilaahay subxaanahu watacaala qabrigiisa u waasiciyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa asigana jannadii firdowsa ilaahay geeyo. runtii waxaan la qabaa xubnihii golaha wasiirada inta ku hadlay in ay tahay xaalad oo wadanka maanta maaragtay aan meel la isugu imaan karin sida ayaga nagu hogaamiyaan ayaan annagana tacsiyada hadduu ilaahay yiraahdo uga qayb qaadan doonaa. waxaa xusid mudan in aan la iloobi karin taariikhda ra'iisul wasaaraha. waxaan ka codsanaynaa aqoon-yahanka dadkan inay qoraan soo bandhigaan taariikhdaas ay maalgeliyaan. runtii aadaan uga tiiraaninsanahay aadaan ugu tacsiyeynaynaa allah u naxariisto. waxaana kuley tacsidaas u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan kaloo mahad ballaaran u celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay 3 maalmood oo baruurdeeq ah oo ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxweynayaasha dalka dadkan u soo adeegay ay mudan yihiin. marka runtii aad ayay noo taabanaysaa ra'iisul wasaaraheena allah u naxariisto allah naga sabar siiyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare wax badan u soo shaqeeyay dalkiisa wuxuu ahaa ra'iisul wasaare waqti ka duwan waqtiga aan joogna maanta wax qabad fiican ka muujiya dalka. wuxuu qayb ka ahaa dib u heshiisiintii 2007 ilaa 2009 taasoo keentay maanta dowladnimada aan harsanayno. waxaan jeclahay Nuur Cadde aniga runtii waa aqoon ayaan u leeyahay. waxaan wada deganeen magaalada London in badan waa kulannay. waxaan ku qiyaas karaa inuu ahaa haliye Soomaaliyeed. ilaahay idinkiisa horjooga wanaagsan oo ahay adduunyadana wanaag uu ku dhamaystay aakhirana wanaag Allah ka siiyo qabrigiisana waasac Allah ka siiyo. intayna loo dhawaa u duceeynaa ilaahay idinkiisa muslim khaalis oo ahay kitaabkiisa dhinaca midigta Allah ka siiyo. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. markan Baydhabo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa maanta ku doortay magaalada Baydhabo guddoonka baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen. waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay Dr. Cali Siciid Fiqi oo ah safiirkii Midowga Yurub ee Soomaaliya. Muxudiin Xusni ayaa warkan Baydhabo inooga soo diray. xildhibaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee maanta kulanka ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxa ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. doorashada oo sanaadiiq lagu codeynayay oo qarsoodi ahaa ayaa xilka gudoomiyaha waxaa ku tartamayay Dr. Cali Siciid Fiqi iyo Maxamed Cabdiraxiin Nuur. waxaana 3 ku guuleystay xildhibaan Dr. Cali Siciid Fiqi oo ka mid ahaa xubnaha baarlamaanka una tartamayay xilka gudoomiyaha baarlamaanka. Dr. Cali Siciid markii ugu dambeysay waxa uu ahaa safiirka dawladda Soomaaliya ee Midowga Yurub. dhawaan waxa uu ka soo dhex muuqday liiska xildhibaanada labaad ee dawlad goboleedka. maantana gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayuu ku guuleystay. gudoomiye ku xigeenka koowaad waxa uu tartamayay Maxamed Nuur Maxamed iyo waliba xildhibaanad Aamine Isxaaq. waxaa si aqlabiyad leh ugu guuleystay gudoomiye ku xigeenka koowaad xildhibaan Maxamed Nuur Maxamed oo helay 84 cod. gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa kaliya u taagneyd oo u tartamaysay xildhibaanad Shamse Madyarow. si gacan taag ah oo aqlabiyad leh ayay ugu guuleysatay dhammaan xubnihii kulanka maanta soo xaadiray. xildhibaan Maxamed Cabdiraxiin Nuur iyo xildhibaanad Aamine Isxaaq oo looga guuleystay xilka ayaa dareenkooda ka waramaya. doorasho xor iyo xalaal ah ay dhacday baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
halkan maanta taariikhda 1 abriil oo codkiisa dhiibtay codkaasoo uu ku guuleystay codbixintaas walaalkeen doctor cali saciid fiqi ambasadorkeena waa xaqiiqda waa nin wadani ah una taagnaa intaan taariikhdan ku ogaa samata bixinta soomaalida guud ahaan meelun tartan ku dhig tartanka meelun ku dhigee ka eedan faraxsana waana ka qanacsana lama qof hadii isla tartamaan qofkoo guul rahaas qofku hore guulaysa wada guulaystaan laakiin qof la heri fadlan lamada maasla baafadna wali ka faraxsana walaalkay maxamed macalin tartanka ana la gali oo ka guulaysaday saacado hadii la roogo gudoomiyaha koowaad ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee labaad ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid iyo waliba ku-xigeenadiisa Maxmed Nuur iyo Shamse Madyarow ayaa isla goobta lagu dhaariyay dhaarinta kadib dareenkooda iyo sida ay u arkaan doorashada maanta ka dhacday iyagoo ku guuleysteen ayay ka warameen maanta doorasho xor iyo xalaal ayaa ka dhacday meeshaan marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed doorashadii meeshaan ka dhacday sida fiican oo ay codkooda marka ilaaha ka mahadiyana kasokow xildhibaanadii idooradeen oo codjoysiyaan eedan mahadsiin may kale inta ku salaamay guddigii ku meel gaarka ahaa Masar Albert hogaamiyay odayaasha dhaqanka guddigii soo xulista saxaafadda dhammaan taageerayaalkay dalka iyo dibadda rogaan eedan mahadsiin mahad uga celinaya dhammaan Soomaalida dibadda iyo gudahaba oo igu taageertay oo muujisay ambalyo ii soo dirtay inaan xilkaan maaragtay aan u tartamo aan ku guuleysto iyagana way mahadsan yihiin waqtiga isagoo ciriiri ah waxaan leeyahay shaqo culus aad taalo waa cusub aan noo bilowday howl culus aad jirto marka khudbadeeda meeshaan ku soo koobaya baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa tiradiisa gaaraysa 95 xubnood halka kuwii hore ay ahaayeen 149 doorashadan dhacday badana waxay u dhacday sidii loo saadaalinayay Muxuddin Xusni Universal TV Baydhabo waayahay markana dhinaca iyo Somaliland cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Ceelaf Weyn ayaa baaq nabadeed ka soo saaray shaqaaqo dib uga soo cusboonaatay deegaanka Fadhigaab la yiraahdo Maxamuud Cabdi Barre ayaa warkan inoo soo diray cuqaashan odayaashan iyo waxgaradkan oo sir wada jira shir jaraa'id ugu qabtay halkan oo ah xafiiska guddiga nabadgelyada ee beelaha wada deegaanada degmada Ceelaf Weyn waxa ay si wada jira tacsi tiiraanyada ugu direen ehelada marxuumiin ku dhintay deegaanka Fadhigaab waxayna beelaha deegaanadaas ugu baaqeen inay nabadgelyada ilaashadaan iyaga oo soo jeediyay in dilalkaasi geysatayna sharciga la hor keeno ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Faarax iyo odayaal iyo waxgarad kale waxayna sheegeen kan horta joognaa waa Ceelaf Weyn degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag war saxaafadda wuxuu daaran yahay shaqaaqadii ka dhacday Fadhigaab habeen hore inaan ka diro tacsi dadkii ku baxay inaan u diro tacsi samriya imaan Ilaahay ka siiyo dadkii ehelada ay ka dhinteen iyo qaraabadii iyo dhammaan Somaliland labada reer shaqaaqadu dhex martay waxaan u leenahay aqligu ha shaqeeyo gurmadka hala joojiyo wixii dhacay wax dambe yaan lagu darin waxaan u leenahay aad iyo aad waan idinku war dheer iyo war gaaban baa idinku leenahay aqligu hash annagu halkan shirkan saxaafadeedkan ragga qabta waxa weeyaan waa Bohooy iyo Darays odayaashii guddida baan weeyaan nabadgelyada waxaan u leenahay labadii reer colaadu ka bilaabantay labada reer hadda shaqadu dhex martay waxaan leenahay idinku haddana kala raaci jirteen anagu idin kala raaci mayno dawladana waxaan leenahay si fiican baa u shaqaynaysaan hawshana waa ku daba jirnaa wada la shaqaynayna dhammaan baa waxaan u leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo waa geeri naxdin leh waa geeri lama filaana laakiin qadarta Ilaahay baa wax walba ka weyno de naf baynu sidnaado binoolaynu u nahayo waxba iskama ogine
dee marka saacaddu dhacdo si kastaba wax kastaba sabab ha u noqdana saacaddu waa dhacaysaa nabadgelyada ha la ilaaliyo hallaan la isxakameeyo haddii qof dhinto oo aan la soo afjarin xaaladda ama wax laga qaban waxaa dhici karta in wax ka badani dhacaan dabadeedna xaaladdu ay gacanta ka sii baxdo waxaanu leenahay waanan mar iyo lababa lahayna in ka badan leenahay nabadgelyada ha la xakameeyo nabadgelyada ha lagu dadaalo xil weynna ha la iska saaro baaq baanu u diraynaa fadhigaab labadaa reer ee wuxuu kala dhaceen baaq nabadgelyaanu u diraynaa midna waxaanu u diraynaa tacsi dadkii dhintay iyo kuwa dhaawacaba waxaanu leenahay kuwa dhaawacana ilaahay ha caafiyo kuwa dhintayna waxaanu leenahay allah samir iyo iimaan allah inaga siiyo iyana naxariista janna allah siiyo inan baa ku jirta iyo nin weyn waa dad masaakiin oo la laayay waanu ka xunnahay haddaanu nahay guddida nabadgelyada ama degmada Ceelifweynba dadkuna saas uga wada xun yahay ciidamada waanu u mahadcelinaynaa si wanaagsan bay yeeleen degdeg bay u tageen hawsha aad iyo aad bay u dhacday haddaynu nahay labada reer ee Boho iyo Darays wax inagu soo noqday ma jiraan geerida ka dhacday Fadhigaab waa geeri naxdin leh waa geeri fakar weyn lagu keentay waa geeri aan la isu dhigin laakiin ilaahay maalin inaan kugu dhashaa maalina waa dhintay maqlaaya nin la yidhaaho Siciid oo Hargeysa ka hadlaya oo la waxbaanu qabanaynaa ninkii baan keenay Ceelifweyn buu fadhifaray jiray boqorka suldaanka ka dhacay هذا ما كان waxaan ku yiri isagoo waxba la fusalaan maqlay maanta isagu nabad mehersan ha keenay haw bixina tuurtay u saaran tahay ka fadhiisa sacayeen soo Axmed Faarax inuna eed ma qabtaane eed ma ay qabtaane waxa weeye doona ninkii soo qabta danino ma aha fadhiino ma aha maxamuud cabdi barre TV-ga Universal wararka gobolka Sanaag waxgaradka beesha uu ka soo jeedo taliyihii ciidamada gorgor ee dabiiqadii sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya in cadaaladda la horkeeno shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkaasi iyagoo dhinaca kale eedeen u jeediyay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya maxamed cabdinaasir ayaan ayaa warkan inoo haya kulankan oo maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho mid kamid ah beelaha deegaanka qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya waxay cabasho ka muujiyeen cadaalad darro ay sheegeen in ay dalka ka jirto aan ilaa hadda aan wax laga qaban dil loo geystay Allah u naxariistay taliyihii ciidamada gorgor ee dawladda Soomaaliya Maxaday Suleymaan Abikar iyo askari la socday oo 18 bishii Oktoobar sanadkii 2019 lagu dilay meel aan sidaas uga fogeen madaxtooyada Soomaaliya waxay tilmaameen in dawladda Soomaaliya ay ka waayeen cadaaladii ay sugayeen qaar kamid ah odayaashii waxgaradkii kulankaas ka qayb galay ayaa ka hadlay waxa ay tabanayaan taliyihii ciidamada gorgor Maxaday Suleymaan Abikar iyo askari la socda ayaa bartamaha laamiga xabad ugu la jaxayado duhura laguma kamiro habeen madow ma socon luuq kaba soo bixin gaari ay wateen baa la yiri xagga naga soo dhigo idinkoo lugeynana noo imaada haday gaarigii dhagteen labadii dhibqa xabada lagu jaxay markaan ka wada hadalnay geeridaas waxa la yiri wasiirka amniga Abuukar Islaam Ducaale wuxuu yiri aniga halay duug ana ka jawaabayay ilaa hadeer ma hayno wax cadaalad la geeyay waxaan rabnaa in cadaalad helno wax ka bacdi cadaaladna unaan helin kiiniyana caraafay inuu si dhaqsi cadaalad ku helno wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh siyaasi dhaqan iyo ganacsada agoorkuma kala saaraco marka hadda ka yeeraa meesha waa lagu heshiiyey waa la iswarsaday intee loo jeedaa la yiri waa lagu heshiiyey shirkan waxaan sheegi rabnay iyo waxaan ka tabanaynana waxay ku qoran yihiin saxaafadeedka ugu dambeyn kulankooda waxay ka soo saareen warmurtiyeed oo ay kaga hadlayaan waxyaabaha isla qaada dhigan odayaashii waxgaradka kulanka iskugu yimid waxaana warbaahinta la wadaagay Cabdirasaaq Xuseen Raajicis beeshu waxa ay cadeynaysaa qodobada soo socda kow in mugdi badan ku jiro dilka sargaalka iyo askariga la socday labo in dawladda Soomaaliya iska saarin mas'uuliyadii ka saarneed
dilka loo geystay sargaalka iyo askariga qaranka Soomaaliyeed taasoo sii kordhinaysa mugdiga 3 in wasiirka amniga oo ilaaladiisa gaarka dishay hubkiisana lagu dilay lahaana mas'uuliyadda lagu aasay ballanqaadana in cadaaladda la hor geynayo ciddii ka dambeysay ka gaabiyey mas'uuliyaddii ka saarneed 4 in wasiirka amniga gurigiisa kaamirada ku xirneed la tirtiray taasina muujinayso in si bareer ah loo baabi'iyey cadaymihii dilka wixii maanta ka dambeeya beeshu waxa ay kula xisaabtamaysaa sharcigana la tiigsanaysaa wasiirka amniga oo ilaaladiisu dilka geystay hubkiisana lagu fuliyey kuna guul dareystay in uu muddo 6 bilood ah cadaaladda horkeeno ciddii ka dambeysay. maxamed cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho. markana dhuusamareeb haweenka ku jira baarlamaanka galmudug ayaa hoggaan cusub doortay sida warkan ay inooga soo dirtay magaaladaasi Nafisa Xirsi Ogle. haweenka ku jira baarlamaanka galmudug ayaa maanta doortay gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn waxaana lagu qabtay doorashada hoolka baarlamaanka maamulka galmudug waxaana soo qaban qaabiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug Faadumo Cabdi Cali iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen sanatarra ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka baarlamaanka Hirshabeelle iyo gudoomiyaasha ururada haweenka degmooyinka Dhuusmareeb Caabudwaaq Cadaada iyo Gurceel ugu horeyn waxaa munaasabada daahfuray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka galmudug Faadumo Cabdi Cali meeshii 3 gabdhood iyo tiro ka badan ay isugu yimaadaan waxaa loogu talagalay inay inta tashtaan gabdhaha u taliyaan dantooda iyo baahiyahooda gaarka ah adduunka u gaarsiiyaan dawladana kursigaas ay ku matalayaan uga soo qaadaan wixii xaq uga maqan wixii xaq ay leeyihiin loo fuliyo oo lagu hubiyo sida matalan inay caafimaadkii soo gaaray waxbarashadii inay soo gaartay deegaanka ay degan yihiin inay ku bad qabaan oo ammaan haystaan siyaasadda hadday rabaan inay soo galaan sidii ay ku soo gali lahayd ganacsiga hadday rabaan inay kor u qaadaan sidii u qaadi lahaayeen ururada haweenka oo jira sidii loo kubcin lahaa oo kor loogu qaadi lahaa intaas kadib ayaa waxaa loo gudagalay doorashada 3 xubnood iyadoona ay codeeyeen guud ahaan haweenka ku jira baarlamaanka maamulka galmudug waxaana gudoomiye loo doortay xildhibaan Canab Maxamed Cusuble gudoomiye ku-xigeen ayaa sidoo kale loo doortay xildhibaan Firdawsi Yuusuf Ciid halka xoghayaha ururka haweenka baarlamaanka galmudug loo doortay xildhibaan Amal Axmed Cabdulle wax fudud ma aha xilka noo dhiibay walaalahayaatiin idinkana noogu soo duceeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu noo fududeeyo haweenkeena galmudugna xiniyaha ka bataraga kama liitaane nala shaqeeyaha nala dagaalmayna Ilaahay idinkiisa aad baa ugu mahadsantihiin codkiina aad siiseen insha Allahna waxaan rajaynayaa midii ka soo baxda xilka loo igmaday oo dhammaan horumarin ku sameeysa gabdhaha reer galmudug waxaan ku faraxsanahay tartankii aan galay waxaan rajaynayaa inaan la shaqeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aan iska warqabno maadaama aan nahay haween Senator Samsam oo kamid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Triig Ibrahim Axmed iyo gudoomiyaha haweenka baarlamaanka Hirshabeelle oo ka hadlay munaasabada ayaa hambalyeeyay hawsha ay qabteen gabdhaha ku jira baarlamaanka maamulka galmudug faktarka kaliya ee muhiimka ee horumarka dawlad goboleedka galmudug aan ku gaarsiin karno shacabkeena dhibaataysan dhibaatada ay uga bixi karaan gabdhaha in wax la baro gabdhaha la hormariyo gabdhaha xilalka loo dhiibo xaqiiqatan gabdhaha Soomaaliyeed waa la tijaabiyay waa la og yahay ku dayo galmudug baarlamaan waa ku faraxsanahay ma sha Allah wali waxaan leeyahay reer Hirshabeelle iyo maamul goboleedyada kale ha ku daydaan gabdhaha galmudug ee baarlamaanka waana ku mahadsan yihiin martigelinta ay martigeliyeen ma sha Allah ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug Marwo Faadumo Cabdi Cali ayaa waxay ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan xubnahan loona baahan yahay isku duubni joogto ah Nafisa Xirsi Maxamuud Universal TV Dhuusmareeb markana akhbaaraadka caalamiga ah hadaynu eegno cudurka coronavirus ayaa tirada dadka ugu geeriyoonaya Yurub iyo Mareykanka ay sii kordhaysaa wadanka Britain maanta oo kaliya waxaa cudurkaasi u geeriyooday 563 qof iyadoo tiradu ay gaartay dhimashada 2352 Isbaynna tirada ayaa sii korortay
waxaana maanta oo keliya la diiwaan geliyey dhimashada 864 qof iyada oo dadka xanuunkan qabana oo markii hore 94,000 ahaa ay hadda tiradu gaartay 1,236 waa 102,136 oo qof. Mareykankana tirada ayaa kor u dhaaftay ilaa 4,000 iyada oo waddanka Mareykanka uu noqonayo waddanka ugu badan ee dadka cudurkan ay qabaan. Dhinaca kale Iiraan ayaa tirada dhimashadu ay gaartay 3,000 iyadoo khatartu ay sii kordhayso. guud ahaan dunida oo dhan 42,000 oo qof ayaa la sheegay inay xanuunkan u geeriyoodeen iyadoo ay la ildaran yihiin 860,000 oo kale halka ay ka bogsoodeen 178,000 oo ruux sida ay baahisay jaamacadda la yiraahdo John Hopkins University. ugu dambeynna xaaladda waddanka Mareykanka ayaa ka sii daraysa iyada oo cudurkan uu sii baahayo. Mareykanka uu noqday dalka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee xanuunkan qaba. Wariyahana Deeq Darajo ayaa warkan inooga diyaariyay. xaaladda Mareykanka ee cudurka COVID-19 ayaa sii xumaanaysa isla markaana abuuray tuhun kala dhex gala madaxda dowladda dhexe tan gobolada iyo dowladda hoose. xaaladda guud ee la dagaalanka ee coronavirus waxba iskama bedelin halka saameyntiisu ay noqotay mid faraha ka sii bixaysa walwalka shacabkuna uu sii kordhayo. 831 ruux ayaa shalay u geeriyootay cudurka halka tirada dhimashada guud ee Mareykanka uu sii cagacageynayo 4,085 qof. deegaanada ay Soomaalida u badan tahay waxaa soo kordhay tirooyin hor leh. gobolka Minnesota waxaa laga helay 629 qof, dhimashaduna waa 12 qof. gobolka Ohio dadka laga helay waxa ay gaarayaan 2,212 qof, dhimashaduna waa 55 qof. gobolka Washington dadka laga helay waxa ay gaarayaan 5,482 qof, waxaana u geeriyootay 232 qof. dhanka dhaqaalaha suuqyada ganacsiga ee Mareykanka ayaa dharbaaxyo weyn kala kulmay cudurka. dhaqaalyahanada ayaa odorasaya in aysan soo kabashada khasaaraha suuqyada ganacsiga ee ka dhashay coronavirus aan mar dhow laga kaban doonin. tusaale ahaan suuqa Dow Jones ayaa wajahaya dhaqdhaqaaqiisii ugu hooseeyay ee ebed uu la kulmo rubaca ugu horeeya ee sanadka oo hadda soo xirmay. madaxda dowladda hoose iyo gobolada oo dhaliilaya habdhaqanka dowladda dhexe ayaa sii kordhaysa. haweeneyda gudoomiyaha ka ah Chicago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn Mareykanka ayaa tiri waxaa shaki ka qabaa kaydka dowladda hoose ee agabka ee ugu talagashay musiibooyinka. Lori Lightfoot oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri ma jirto maamul wax ka dalbaday dowladda dhexe oo jawaab waafi ah ka helay. dhanka kale gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo oo kal hore go'aansaday in ay iyaguna qabtaan waxyaabo badan oo dowladda dhexe laga rabay kadib markii ay ka waayeen heerkii ay ka rabeen ayaa habdhaqanka madaxweyne Donald Trump ku sheegay mid aan kii madaxweyne Mareykan ahayn. dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee Mareykanka ayaa dadweynaha la wadaagaya in khasaare nafeed ee ka dhalanaya COVID-19 uu aad u badnaan doono ka hor inta aan la xakameyn. Deeq Darajo, Universal TV, Minnesota. aad buu mahadsan wariyahana Deeq Darajo. warkaas ayaan ugu dambeeyey warkii caalamka ee caawa tan intaan warkan mid la mid kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.